السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي isku soo noqod wanaagsan waxaan malaynaya inaad fiicantiin annagana waa idin fiicannahay caawa waxaan wadaa casho yaroo fudud cashada intaana sheeginin meesha ay gala socotid waa chef braro maanta waxaan wadaa casho yaroo aad u fudud cashadan madaxeedu waa baradho iyo hilib shiidan alaabtan inaba caadi maahan insha allah baradhada laba nooc ayaan u samaysan doonaa nooca labaad waxaan ugu talagalnay inaadan daadin baradhada kale waxa aad ka samaysay ee isagana aad meel kasoo saari kartid cunno aad u qurux badan oo aad macaan halkaa 4 xabo oo baradho ah baradhada waa soo xulanay way dheer tahay maaha baradho iska normaal maaha faant xoogaa way dheer tahay gacanteyda dhirkeeda la eg tahay gacanteyda dhan maaya waa gacanta inta hore calaa casha bacfar ah halkaas hilib shiidan ayaa noo yaalo sidoo kale halkaa oyster ama cheese ayaa noo yaalo cashada aad bay caawa macaan tahay halkaas basal baa soo jarjaranay maraq digaag xawaajiga bulvarka ah oo xawaaji dhudhub iyo wax noo yaalo maraq iyo sorry iyo barbarooniga bulvarka ah halkaa wax noo yaalo toon iyo wax yar oo cusbada insha allah waxaan ku darsan doonaa baradhada sidoo kale halkaas wax yar oo waxaa noo yaalo saliid olive oil aa isticmaali doonaa saliidda haysatid waa isticmaali kartaa waxaan sameynaynaa baradhada waxaa sameysaa si qiyaas waa inaa u jartaa si qiyaas ah dhinacna u weynaan dhinacna u badnaanin mindida saa ugaha iskana ilaaliya mindida iyo ku sarin baradhada saas ayaan usoo jarjaraynaa waxaan sameynaynaa baradhada markaan labo jab ka dhigno ama laba faliiq aan ka dhigno waxaan sameynaynaa insha allah dhexda ayaan ka saari doonaa baradhada maanan fiiqan bes si fiican ayaan usoo dhaqanay insha allah qolofkeeda waa ku isticmaali doonaa haddii alla idmo qolofkeeda faa'iidooyin badan ayaa ku jira baradhada waxaan sameynaynaa mindidaada soo qaad saas dhexda uga jarjar sida maangada oo kale marka maaragta afrigeeska laga dhigdhigayo oo la jarjaraya camal yaa waa idin sii fududeynaa saa u fahantaan mindida qaado dhexda anyway dhexda inaa ka banaysidaa muhiim ah qaado loogu talagalayna way jirtaa ani hiriirtaas dhanba waa diiday inaan raadiyo ma fahantay laakiin qaadadaas dhowr waxaa u isticmaalay fruitkaa loo isticmaalaa anyway qaado caadi aan soo qaatay markaan baradhadii sag dhexda ka siiyey way ii fududaysay ma fahantay maxaa la dhahaa mindida qaadaan soo qaatay saas ayaan dhexda dhan uga soo saaraya spaceka inuu igu yaray aad u malaysaa saasa laakiin ku wadayna insha allah waxaan sameynaynaa saas ayaan baradhada dhexda xoog la dayaa ka dhameynin baradhada in la cunaa loo baahan yahay baradhada xoog ayaan saas dhexda uga soo saarnay waxaan soo reebanay waa ujeedaa wax yar baradho iyo qolofkii baradhada intii kale gees ayaan dhigtay insha allah saxanka ka labaad ayaan ka sameyn doonaa biyo ayaa halkan noo karkarsan cus baan ku dareynaa baradhadii aan dhexda kasoo bixinay baan ku gureynaa karis badan iyo kaa gelin baradhada ilaa 4 daqiiqo meelahaas u qabo isla markii waa inaad kasoo saartaa haddii kale way kaa jajabaysaa baradhada yani disaynka ugu talagashay ma helaysid baradhadii waa kasoo saarnay waa kaasaa gambi si ay biyaha ay uga dhacaan ilaan dhexdii waa godantahay biyuhu way gelayaan ma fahantay saas ayaan uga gambiyey softina waa soo qaaday si ay khalayl iigu noqoto saas ayaan dabka uga soo guranaynaa asxaabey alaabtan inaba caadi ma ahan biyaha dabka ii saaran kama dejin doono insha allah baradhadii dhexda aan ka bixiyey ayaan ku karin doono waxaan ka sameyn doonaa batati mousse saxan batati mousse ah ama baradhada shiidan ee lagu dari jiray subaga waa kaasaa cusbana way leedahay anyway cusbo ma baahna because markii hore kusoo daray sugadii ayaan hadda soo aadaynaa wax yar olive oil ah halkaa ku shubtay maadaama hilibka shiidan inta badan baruur uu leeyahay saliideydu waa wax yar toon ayaan ku daray waan isku walaaqay basashii iyo xawaajiyadii iyo maraq digaagii iyo wixii horena dhakab ku siiyey waan isku walaaqay markii xoogaa yar baradhada xataa ma raba inay basashii ma raba inay soore iga dilanto inay xoogaa muuqataan rabaa hilibka sambuuska camal oo kale saas ayaan sameynay waxaad moodaa inuu dry yahay maqlaha ama bahalka aan ku karinayo inuu qalayl yahay yani saliid aad bay u yareyd waxaan sameynay hilibkii ayaan dabka ku shubanay intii markii hore ku darsanay waxaan sameeyey miidan arkin laakiin aadi 3 qaada camal oo biyo aan ku daray suu wax yar si fiican iskugu dhex galo saas ayaan kusoo bislaysanaynaa waqtigeedu kuma dheereynayo waa fahmi kartaan wax kale u dhiman ma lahan 3 qaado biyo un baan ku daray alaabtaas saas ayay diyaar ku tahay asxaabey oo ujeedaa baradhadii saxankaas ayaan ku gelin doonaa insha allah waan soo diyaarsanay iyadana alaabtan inaba caadi ma ahan casho aad u fudud oo aad u macaan weeye bariis iyo baasta iyo balaa dhan rooti waa kaga maarmaysaa waa full waad ku dhargeysaa way macaan tahay way qurux badan tahay caraf haddana
waxaan sameynaynaa hilibkii ayaan dhexda kaga gureynaa soo karsanay hilibkii shiidnaa iyo basashiida iyo intaan isku soo dardaray oo dhan hilibku waa inuu qallayl ku ahaadaa biyaha u sameynayna baradhadan way jirtaa iyadoo suugo korka looga shubaayane ama soos tamaadka insha allah waan soo gelin doonaa haddii alla idmo xoogaa caajisle ayaamaha iska noqda igu qaata oo iska fahmi kartaan ma fahante waxaan sameynay saas ayaa ugu gurtay waxba ha ka buuxinin buuxa ka dhigin ad normaal si space ah u heshid hadhowna baradhada u muuqato plus aad cheeskana ku dartid aad space uga heshid anyway saas ayaa usoo wada wadeynaa asxaabey waxaan sameyneynaa markaa sidaas usoo wada gurano hilibka kusoo wada gurano uustiga ayaan korka ka saari doonaa haddii alla idmo cuno aad u macaan weeye foorada way noo sii kulushahay kaaliska arag waqti badanba ma qaadanayso waxoo dhan waa bisiliyeen waqti badan makaa qaadanayso alaabtan aad ayay u fududahay waadna ka heli doontaa waa hubaal adoo qurux iyo macaan iyo tayo intaba ku cunayo iyo caraf waxay aragiisa ku deeqaa uuntiisa ku deeqdaa la dhihi jiray mafahanti casheeroo fudud oo qof walbo aad casuunta ula hortegi kartid weeye ustiga saas ayaa u saarsaarnay ma ka badinin ustiga anigaan saarsaaray ustiga anigaan saarsaaray ustigan qon baa laga sameeyey faadkiisu waa yaryahay waxaan sameynay saas markaa ugu guranay waxaan gashanay foornada wuxuu noogu jiraysaa 20 daqiiqo ka bacdi ayadoo waxaa kaaga soo baxaysa aan kaa gubanin si fiican baradu bislaatay wax yar oo sorry waxaan ku daray olive oil iyo ka ilaawin sidoo kale orgaanada caraf ayay siinaysaa orgaanada aad ayaan u jeclaa wax walba waan u isticmaalaa aniga because caraf bay orgaanada cunada siisaa inta badan baradhadii kale ii soo hartay tiif waxaan geliyay foornada 20 daqiiqo ay ku jiraysaa baradhadii kale waan kariyay waa ujeedaa waa soo meeray baaquli ayaan ku shubanayaa insha allah waa soo shiidi doonaa cusbo ma u baahnayn inaan ku daro because biyaha cusbo lahaa baaquligaas ayaan kusoo gurtay caaga qaado subag aan kusoo darsaday waxaan soo qaatay mashiinka gacanta mashiinkaasaan si fiican ugu soo shiidayaa markay si fiican ayaa cajiin camal cajiin maa la dhihi jiray ma istaqfurla sida yani mashadoonyo yani jilaac markay dad musoo fahmaysaan oo maleynaa waxaan sameeyey saxan ayaan soo qaadanaya already hadda waa ii diyaar saxankaas ayaan ku shubanayaa baashaan wax yar haddii qabowdo inay kulushahay waa ujeedaan xoogaa way adkaanaysaa laakiin ani 1 2 3 aa laydhahaa maba suga waxa haddaas suga waaba ka caajisayaa kaas ayaan ku shubay hilibka intii ii hartayna saas ayaan korka ayaan uga shubanayaa saxanka quruxda badan waxaan ula jeeday inaa idin tuso oo yani waa 2 video waa dabcan waxaan ugu talagalay inaadan daadin baradhada cunada lama daadiyo ma fahanteen meelna aad dhigtid baradhada way isbedelaysaa oo ma fiicna ma fahanteen biyana kuma hayn kartid saacado biri oo kale ma isticmaali kartid waa laga wanaagsan yahay asxan saa u samayso biri cunada aragtid hilibkii intii iiga soo hartayba waxaan sameeyey saas ayaan ugu guray wax yar kaaroodaan ku sharaxan doonaa insha allah aan soo xoqay olive oil iyo orgaanana oo isticmaali doono dushaan kaga daraya saxankaas saasuu ku diyaarsan yahay qurux macaan kaal iska arag ilmaha xataa aad ayay uga heleen saas markaa usoo wada sameyna asxaabey alaabtaan caadi maan diseenoo kasii dhiga had fiir waa saxan aad u qurux badan aad qof walba loo hortegi kartid iskuma walaaqinin oo wixii 1 2 3 kama dhiginin ma fahantay waxaan jeclaystay inaan idinku kabo videogan asagana uga faa'iidaysatid goonidiisa xataa u samaysan kartaa olive oil ayaan ku daray waad ka dayn kartaa haddaad saliidda nacab tahay sidoo kale wax yar oo carrot oo ugu talagalay baradhada in lagu cuno carrotka leen waxa iska hal video laga wada dhigaa iska fahma ma fahantay wixii ma kala gurguri kartid ma fahantay alaabtii asxaabi way soo bislaatay saas ayaan saxankaas ku diyaarsanay halkaa waxaa noogu jiro shiglin sauce aa noogu jiro sidoo kale ketchup xaggaa noo yaalo 4 baaqul waa inaa idiin sharaxaa ma fahantay waxaa noo yaalo sidoo kale tuna fish sauce oo mayonnaise kale carrotka soo xoqanay alaabtii waa ujeedaa saxan ah inaba caadi ahayna meeshaas ka soo baxay macaankiisa kaale iska arag baradhada xabadaha maqana is leedihiin tirada waa la socotaan adinka xabada saxanka markaa ku gelinaya space u waaye marka basbaasaan ku cunay anaa cunay asxaabi intaasna kaftan ayay ahayd alaabtii ujeedaa sadar muqdiso halka dhan bay tiraahdaa soomaalida saxankii labaadna waa kaasaa alaabtan macaan waa hubaal inaad ka heshay haddaad ka hesay shiishar garay saaxiibadaada la sii wadaag nagu dhiirigeli annagana inaad aad commentiga tirahdid maasha allah cuno wanaagsan ayaad samaysay wanaag ayaad ka helaysaa hadalka fiican ajar buu ilaahay kaa siinayaa
asxaabi haddaad nagu cusubteen insha allah subscribe-ta noo saara annaga saxankaygii waa kaasaa intaas cambaro soo diyaarsatay dhanka beerta in isku siiso idin sii dhadhaminaysaa maanta inaa la cunaa in la tuso alaabtii saas ayay noo noqotay baradhada ujeedaa way bisashahay foornadiina way caawisay markii horena taa ogeeda inaan biyo kusoo karinay saas ayaan jam ka dhigay asxaabey ujeedaa qurux hataa gacanta caadi saas rooti camal intaa ugu daaratid sooska aad ku cuni kartaa ma fahanti insha allah wixii aad fahmi weysaan asxaabey commentiga macaan ay isku tahay meeshaan shiglina yaalo hilba yaalo baradha taalo kalluuna yaalo waa labada soos midna chicken waaye midna waxa waaye waa kalluun hilibka shiidna wuu ku jiraa marka magaca hilib oo dhan maanta halkaa waa ku dhan yahay macaankeedana dee yaa anaa idiin og indhihiinana idiin macalin weeye aad ayaa u mahadsantiin insha allah next video ayaa inoo ballane waxaan rajaynayaa wax fudfudud oo waqtigoodu yaryahay inaan soo geliyo